السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين كسر هذا برنامج كان محا عصب فنك هندي هدين نقطة بولد كما كونفور هندية لأن كسر قادنا ناسيدا وكلا قيبة هذا من كسر قادنا ضمن أفلام التياتر صارنا كان عسيدا يسمينا أنت نقول قريب برنامج كان هذا جانا كو عصب تاي سبسكرايب وصارنا اللوين أنا مقالة لاجل وصارت أنكو بالله ونقضب كينا كواز جلاغ لغو مقع حريك تكروشن صاحبة إن كان شقايا كقوان سيدو كلنا fadhi uma yeelsadaan ka warqabna jalaaga waxaan u diyaarsan filimkiis lagu magacaabo fikran feedha hadda warka jaruuxa ya saaxiibada wuxuu gali doonaa 12 week nagu soo food leh ninka is diyaarin xoogan ayuu gali doonaa taasoo ka dhigan bishan iyo bisha dambe kaab nagu soo haysan wax kale ma sameynaa jalaagan saaxiibada qiimaha badan miisaankiisa kordhay ayuu dhimaa sidoo kale jirkiisa ayuu saaxiibada qiimaha badan transformation ama isbedel isku sameyn doonaa jalaagan sidaan ka warqabna filimkiisa fikran feedha saaxiibada miisaankiisana kor ayuu qaad sidoo kale gar weyn u diis hadda garka iska jar sidoo kale saaxiibada miisaankiisa uu dhimi doonaa sidoo kale wuxuu isku diyaarin doonaa filimkiisa kala weyn lagu magacaabo Fighter ogaada filimkan Fighter shaqadiisu waxay bilaaban doontaa sida hadda shaaca laga qaaday 15 bisha November sanadkan ku jirno 2022 ee shaqadiisa bilaaban doontaa ogaada saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa adrisho koodka gabadha lagu magacaabo waa Deepika Padukone sidoo kale filimkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Sadad Ananda sidoo kale Sadad Ananda iyo sidoo kale Hrithik Roshan isku macsuum maadaama hore iskala shaqeeyeen filimka weyn blockbuster ka noqdo filimka lagu magacaabo waa kaas oo la daaw sanadkii 2019 haddana oo markii labaad iskala shaqeynaa filimkan lagu magacaabo Fighter sida daraadii saaxiibada qiimaha badan Hrithik Roshan shaqaya ka go'an sidoo kale ogaada filimkan Fighter xukuumad dari doona ciidamada Hindi waliba kuwa saaxiibada qiimaha diyaaradaha dowlad ciidanka cirka ayuu ku matali doonaa filimkan sidoo kale qiso ama shay ka dhab dhacdana waa lagu matali doonaa sida daraadii Hrithik Roshan saaxiibada tan laba week ayuu saaxiibada isku sameyn doonaa isbedel xoogan oo jirkiisa ku sameyn doonaa maadaama miisaankiisana aad u kordhay sida daraadii hadda miisaankiisa ayuu dhimi doonaa sidoo kale saaxiibada iska dhigi doonaa qof caatay iska dhigi doonaa maadaama filimkan ku matali doonaa ciidanka cirka ayuu ku matali doonaa sida daraadii miisaankiisa ayuu hoos u dhigi doonaa sida hadda shaaca laga qaaday xayawaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah wiilka lagu magacaabo saaxiibada kartiga arig ninkan waa lagu soo xumay sidoo kale directorada barlooysada ayaa saaxiibada ku soo xumay maxaamidaas leeyahay wax kale ma ninkan filimkiisa ugu dambeeyay volvoleeto sidaan ka warqabna wuxuu u noqday blockbuster taariikhi ayuu noqday sida daraadii saaxiibada jalaaga hadda waxa la shaqeyn doona directorka lagu magacaabo Anurag Basu ayaa saaxiibada uu film u sameyn doona sida hadda inta badan shabakadaha maanta ee official statement ay soo saareen sidoo kale saaxiibada waxa la rajayn doona Anurag ninka lagu magacaabo Anurag Basu saaxiibada in official statement soo saari doona sidoo kale filimkiisa xiga inuu sameyn doono wiilka lagu magacaabo Kartiga Aryan saaxiibada wiilkan farqiisu oo buuxan hadda waxa u diyaarsan sidoo kale dooris oo kuda filimkiisa lagu magacaabo Shahzada sidoo kale ogaada saaxiibada ninkan wuxuu dooris kuda filimka wali magacan loo bixin laakiin ee hogaamiye iska leeyihiin gabar lagu magacaabo Kiara Advani sidoo kale filimkaasna shaqadiisu way socotaa sida daraadii hadda director-ka lagu magacaabo Anurag Basu ayaa saaxiibada rajayn doona inuu wiilka la shaqeeyo maadaama hadda uu sheeko diyaar sidoo kale wuxuu hogaamiye kaga dhigi doonaa wiilkan lagu magacaabo Kartiga Aryan taasoo ka dhigay wiilkan producer sidoo kale director ugu caasa dalka Hindiya ayaa ku soo xubay maadaama filimkiisa ugu dambeeyay saaxiibada oo blockbuster taariikhi noqday xayawaanada kale saaxiibada aan soo qaadan karno waxa kamid waxa si official lagu dhawaaqay filimka lagu magacaabo Bubbly Bouncer in filimkan saaxiibada director OTT laga daawan doono gabi ahaanba tiyaatarada laga ma daawan doono sida shaaca laga qaaday waa filimkan waxa hogaamisay ka gabar lagu magacaabo Tamanna Bhatia sidoo kale waxa lagu balansanaa filimkan 13 bishan ku jirna September in tiyaatar laga daawo laakiin hadda saaxiibada tiyaatarada waa lagu wixii director OTT ayaa lagu wixii sidoo kale waxa gacanta ku dhigtay shirkadda loo yaqaan Disney Plus isla 13 bishan ku jirna ayaa laga daawan doona sidoo kale بريتولا فيلم كان واحد لقى صوب بندق دون حلو يقانا ترى ما جوز كيس هي صوب بندق دون حق لو شاع لقى خالد صاحب بدن إن فيلم كان لو قلها تامل يسود وكل هندي دن كاسي برتلو يقانا ديسني بلا هوستن لقى داون دونا xayawaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah saaxiibada isku diyaariyo goosgooska filimka weyn lagu magacaabo Vikram Fedha sidaan ka warqabna filimkan waxa hogaamiyalka Hrithik Roshan sidoo kale waxay ku xifaaltami doonaan ninka lagu magacaabo Balaqaan sida shaaca laga qaaday filimkan 8 September bishan ku jirno ama saaxiibada qiimaha badan qamiista ka binagu soo haysa ayaa filimkan goosgooskiisa dhameystiran la soo bandhigi doona maadaama filimkan la daawan doono dabayaaqada bishan ku jirno 30 September ayaa la daawan doona ogaada filimkan Vikram Fedha waa dib u sameyn dhankaasiyo taamirka ayaa laga soo qaatay halka saaxiibada doorka Vijay Batu oo qaadan gangister kan lagu magacaabo Hrithik Roshan sidoo kale arm dhafan doorkiisa askariga waxa qaadan doona Saif Ali Khan sida daraadii 8 bishan ku jirnaa goosgoos filimkan laga soo bandhigi doona sidoo kale xayeysiin balaaran ayaa filimkan loo sameeyay maadaama saaxiibada dabayaaqada bishan la daawan doono
أنا كلام سوق هذا كرنا حكمنا سيدا أنك ورقم نقشيكم مع صاحب هذا الجماعة أنك سوق قلنا حأصبح فيلم كسلوم مجعبة كاتب دري كاسو صاحب هذا الدايركت أو تي تي لقد أنت أتر لسان سيدا دراد دي هذا شبكات دلوية قانا كما يحس الضوء عسى وكل صاحب هذا حشا على قد نقشيكم مع سنة كان كل جرنا أفر فيلم يلوم على صدق وكل صاحب هذا حلي فيلم كان كاتب لي وفيلم كوشة كذا سنة كان لوضع كذا تلوضع ولا إيمانه سيدا دراد وحصل في رندنا جلاجا طبعا أفر فيلم لما صاحب هذا قيمة بين شبكات دلوية قانا أبدي ريتنج أنت بدن طبعا أفلام sidoo kale afartan film inta saaxiibada dhibacay kala heleen kaalinta kood waxa ku jira saaxiibada filmkiisa oo OTT laga daawano filmka lagu magacaabo Katbudli sidoo kale tabanka dhinac filimka lagu qiimeeyo filmkan waxa la siiyay 6.2 ayaa la siiyay sidoo kale kaalinta labaad waxa ku jira filmkiisa Burbur lagu magacaabo Samra Fresh sidoo kale filmkan saaxiibada tabanka dhinac filimka lagu qiimeeyo waxa la siiyay 5.8 ayaa la siiyay sidoo kale filmkiisa saddexaad waa filmka lagu magacaabo Bachan Bandi tabanka dhinac filimka lagu qiimeeyo filmkan waxa la siiyay 5.2 ayaa la siiyay sidoo kale filmkiisa kale saaxiibada waa filmka ugu dambeeyay lagu magacaabo Rakshan Banan tabanka dhinac filimka lagu qiimeeyo filmkan waxa la siiyay 4.6 taasoo ka dhigaysa saaxiibada filmkan lagu magacaabo Katbudli inay sheekadiisu wanaagsan in ka soo saaxiibada wali filmka aniga aan daawan maadaama maalmihii ugu dambeeyay saaxiibada af Soomaaliya laga soo dhigay sidoo kale qorshaha wuxuu yahay in aan daawo sida daraaddeed filmkan sheekadiisana aad la omanada filmkan Katbudli soo daawatay sheekadiisa kula taariikhda comment nooga biiray حيوانات كلا صاحبة سوق قادن كرنو حكمد ولا باون كليان صاحبة الجعل كلا قبا وواحد ضاف من ده صحولي صاحبة إن كان لوضع سبيشان كل جرن سبتمبر حود دبل دقة ده شيء سيدا دراد تاجرش سوحي وحدين فيلم كيس اللي بدكم زيد اللي ده فيلم كلهم مجعوة جلسة صاحبة فيلم كان تياتر لوسو على سودا وكلا فيلم كان صاحبة ركور والي أيو لجا سودا وكلا جناح سعدنا وسمي سودا وكلا توبق ولا شيء لما يلقى داونا دبت إدل مركز قدرة مركان فيرنا فيلم كان ديجان كتلجو حكسو حري لعجاريسو لابد بيع كونتنت دبكر يكسو حري سودا وكلا هندي أنت ذاك الحكي كان لعج جاريسو لو أتلقوا اللقاء فسيس كم سوقي العالم كان حكي كان لعج جاريسو أفرت النجودر تقول صاحب الحسوح حريس الدح دبع العطن كرن يسوع حريس الدرد وحلي بون كليان صاحب الجعل كلاقبة ووالي ما دام فيلم أفرت تمسنا كار صاحب الضوء أنت أتلقوا جسوا على الدرب الصدق التاجريس يسنا سوالي ودوان حتى وحلي صاحب النك لقوا مجا ماش بابو ممكن بشيء قد بالدقة فيلم كيس لقوا مجا بكير تياتر لقوا عليه حتى فيلم كان يا كجناعسي هذا سيد الدرد نك كان جعل كلاقبة ووالي bal markaan soo qaadana filmka kale lagu magacaabo ranga saaxiibada filmkan dhaytoogiisa waxa uu qabsoomay isla fiirin doona filmkan saaxiibada wax loo yaqaan crash out ay ku dhacay sidoo kale burbur maadaama hadda filmkan already ganacsigiisa uu dhimanay saaxiibada wiilka lagu magacaabo Vision of Time culays badan ay iska saaray sida darada waxa isla fiirin doona filmkan laba maalmood deegaanka Telugu wuxuu ka soo xaray canshuurta koor lacag gaarayso 2.65 koor qoliya jaradaha qeyb waxa ku soo adisaamin gaara 1.50 koor ay ku soo aday sidoo kale opposites kam suuqyada caalamka kaliya wuxuu ka keenay lacag gaarayso 25 lag sidoo kale saaxiibada Hindi inta kaliya wuxuu ka keenay lacag gaarayso lixlag filmkan ganacsigiisa wax loo yaqaan dibadda soo xiray lacag gaarayso 3.30 koor soo xiray sidoo kale qoliya jaradaha qeyb waxa ku soo adisaamin gaara 1.8 koor taasoo ka dhigaysa saaxiibada qiimaha badan film 14 sano koor lagu magacaabo jalsa boon kaliyan hogaamiye kay ah saaxiibada hal maalin ganacsi uu ka sameeyay laba maalmood ayuu filmkan saaxiibada oo ganacsigaas ku sameeyay sida daraaddeed wiilkan saaxiibada burbur dabiici iskaga dhac maadaama filmkan lagu magacaabo ranga marka hore lagu ibsay lacag gaarayso 9 koor soo dhamay soo noqdo waxa laga rabaa dib u soo lacag gaarayso 7 koor ay saaxiibada kaga dhameenta soo hidda mesela filmkan ku noqon sida daraaddeed ku adagtay iska daa hadda saaxiibada waa burbur filmkan dadka ayaa qaaday bal markaan waxa isla fiirin doonaa filmka kale saaxiibada hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Jim Fikram filmkan 4 maalmood ay tiyaatar saareen wax u qabsoomay isla fiirin doonaa isla filmkan saaxiibada wuxuu noqon doonaa film dadka qaadan maadaama inagii saaxiibada ganacsi adag uu sameeyay sida daraaddeed filmka waxa isla fiirin doonaa ganacsigiisa halka uu maray afar maalmood saaxiibada filmkan ganacsigiisa markaan fiirmeesha ganacsigu adag ka sameeyay dhulka laga leeyahay taamilka maadaama ka soo xariishay 20 koron ay ka soo xamar waa tamal landu afar maalmood talangu wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 5.70 koor ka soo xaray karnataaka wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 3 koor bar kareela wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 2 koor bar hindi inteeda kale wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 1.25 koor oo fasiiskam suuqyada caalamka wuxuu ka soo xaray lacag gaaraysa 5 koor filmkan ganacsigiisa wax loo yaqaan dibadda marka la isku daro saaxiibada afar maalmood wuxuu soo xaray lacag gaaraysa 4.2 koor bar ay soo xaray qoriya jaradaha qeyb waxa ku soo saamin gaaray 22 koor bar istilna filmkan ganacsigan kuma film maadaama qoliya ajaladaha qeyb saaxiibada la shay lacag u dhaxay 80 koor ilaa 90 koor lacag ku dhow ayuu ku ibsan sida daraadda Jim Fikram saaxiibada filmkiisana wuxuu noqon doonaa film doonta la degi doonto wad kuma santin daawashada daawataan muuqaalka hadayta markii kuugu soo boqonan channelkeena subscribe noo saar sidoo kale lawina muuqaalka laga noo saarto aragtida comment noo reeb hadaa kamanta saaxiibada horno joog muuqaalka share saaxiib wanaagsan adoo kale channelka ugu soo birantaan barnaamijka mid ku kulmayno amaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh